Assalaamu calaykum dhalinyaro, soo dhawaada isku soo noqosho wacan. Waa anigoo Cabdiraxmaan, halkaad naga daawanayso YouTube channelkeena Gabaro Maanta. Maanta muuqaalkan waxaan idinkugu sharxi doonaa sidaad ku samaysan lahayd muuqaaladan oo kale. Haddaba intaan muuqaalka guda gelin waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe noo saarto, kambalaalkan aad furato, muuqaalkan aad like saarto. Marka ugu horeysa waxaad u baahan tahay inaad haysato sawiradan oo kale iyo loogaad adiga leedahay. Haddaba si aad u hesho sawiradan oo kale waxaad soo furanaysaa Google Chrome-ka, waxaadna ku qoraysaa man png ama haddii kale ka walwalin waxaan idiin soo dhigi doonaa sawiradan oo kale Telegram channelkeena, linkigiisana wuxuu yaalaa qaybta description-ka. Marka aad soo degsato sawirka aad rabto, ani sawiraad waan haystaa, waxaan sawirka ku editing gareyn doonaa application-ka Pixel Lab. waxaan filayaa inaad dhammaantiin wada taqaanaa application-kaas. waxaan soo furanaynaa application-ka Pixel Lab, waxaad taabanaysaa qaybtaas delayda, waxaadna sii taabanaysaa qaybtaas blasta, waxaad taabanaysaa follow gallery. markaad taabato halkan waxaad soo gelinaysaa sawirka aad rabto. aniga sawirka ayaan soo dooranayaa. sawirka aad rabto marka aad doorato waxaad daabanaysaa qaybtan ay ku qoran tahay eraser. markii aad taabato qaybtaas ayaad soo furaysaa, waxaadna ka dooranaysaa shape-kan oo circle-ka ah. kadib waxaad ku aadinaysaa ninka wejigiisa. markaad ninka wejigiisa ku aadiso waxaad taabanaysaa qaybtaas kore. markaad taabato okay ayaad leedahay. kadib waxaad soo gashanaysaa haddana loogadaada oo bilaa background ah. kadib waxaad ku aadinaysaa ninka wejigiisa. markii aad ku aadiso anaad waa isla simaysaa. kadib waad save gareynaysaa oo waxaad taabanaysaa qaybtaas kore. kadibna meeshaan ayaad waxaad ka dhiganaysaa high ama very high meesha aad rabto. kadib save ayaad leedahay. sidaas ayaad ku heshay. markaad sawirka soo samaysato si aad ugu dhigto muuqaal ahaan waxaad soo furanaysaa application-ka CapCut. marka aad soo furato waxaad taabanaysaa new project. kadib qaybtaas kore ee stock videoska ayaad taabanaysaa, waxaadna soo qaadanaysaa background-ka ama muuqaalka aad rabto. kadib markii aad soo qaadato waxaad taabanaysaa qaybtaas overlay-ga, waxaad sii taabanaysaa overlay. kadib waxaad soo qaadanaysaa sawirkii aad soo samaysatay. markii aad sawirka soo qaadato waxaad taabanaysaa qaybtaas blasta ee loo yaqaano keyframe. kadib sawirka ayaad hoos u bixinaysaa ama hoos ayaad u diidaysaa. kadib waxyar ayaad sikinaysaa, kor ayaad soo bixinaysaa marka kale. kadib sidaas ayaad ku heshay muuqaalkii aad rabtay. waxaad taabanaysaa save. sidaas ayaad ku save garaysanaysaa. maanta muuqaalkeena meeshaas ayuu ku egyahay. waxaan kaa codsanaa haddii ay tahay marka ay ku warayso YouTube channelkeena aad soo booqato inaad subscribe noo saarto, gambalaalkana aad furato, muuqaalkana aad like garayso. haddii aad u baahan tahay waxaa wanaada nagula wadaaga dhanka commentiga.